وعن ونكسن داوديال من كسرنا داونيسان كسر دواده ورئيسي أي صورة جشي إن الله يشوا سنتر عبدي إسماعيل سمتر وحنجعلها إن مركورة هذه السودويسان سنتر سودو مركورة خيرية بركة والالكي محوك السليسين هي خلافك قرده هي مدحونها الصومالي حسن شيخ محمود مدحونها جبلان أحمد مذوبي intaynaan khilaafka Jubbaland iyo fila Soomaaliya gelin khilaafka Soomaaliyeed muxuu ku dhisan yahay waay salkiisu muxuu yahay afar arrimood ayuu ku dhisan yahay midda ugu horeysa waxa weeyaan kalidii talis ayaa wadanka baabiyey markuu doonaya ha noqde kalidii tasho iyo xoog tan labaad waxa weeyaan dadkii oo loo kala qaybiyey dameere iyo fardo 4.5 la dhaho ama 4 ونصف ama 4 badh isma geedaan leeyahay markay siyaasad noqoto waa tii labaad waay ta saddexaad in dishanay waxa weeye hooyada waxaan oo dhan waxa weeye bahal lacag oo musuqmaasuqa oo laga xishoonayn ta afraadna waxa weeye kitaabkii Ilaahay oo lagu dhaaranayo been loogu dhaaranayo marka kitaabkii beenta loogu dhaartay wuxuu fasaxay saddexdii kale fidmo ayuu fasaxay marka inta arrin afarta arrimood ay jiraan qarankeennina wuu baaba'ay qowmiyadnimadeena Soomaalinimana ma soo noqonayso Soomaad garan taas ayaa sal u ah waxa maanta Kismaayo iyo fila Soomaaliya isku haya waxa weeye Xasan waxa weeye lacag buu bixinayay sidii kuwa kale u bixinayeen markii la doortay baarlamaankii lacag buu siiyay saa'ida waxyaabo caynkaas oo kala ah ayuu ku dhaqaaqay wuxuuna leeyahay imika awalna wuxuu yiri Soomaali heshiisa maantana hadalkiisu waxa weeyaan cidnaba looma joojinayo kalidii talaskii ayaa meeshii yimid lacagtii way taalay 4.5 way taalay kitaabkii beenta loogu dhaartayna way taalay marka waxasan waxa uu leeyahay waxaan sameeyo Axmedow ma sameyn kartid Axmedna wuxuu leeyahay waxaad samaysaan sameynaya marka waxa weeyaan kaaf iyo kala dheeri labadooduba way khaldan yihiin ummadana jarbay ka ridayaan laakiin ninka muftaaxa haya waa Xasan weeyaan marka waxa isku haystaan ma dastuuriba mise waa arrimo shakhsi marka wax kale ma aha waa hunguri waaya waan sii joogayaa iyo Xasan oo aniguna waan fidsanayaa waa kan dastuurkii meesha doonaya marinaya marka waxa weeyaan wax shakhsi ah wax dastuuriyo la isku haystaa ma jiro walaal hore dawladdu waxay isku hayeen maamulka Puntland hadda sidaad ogtahay dawladda waxay ciidamo geysay Jubbada Hoose ma ku saxan tahay arintaasi in dawladda Soomaaliya ay ciidamo geyso Ras Kamboni waxaan moodayay in ahmiyadda ugu weyn ee maanta ciidanka Soomaaliyeed hor yaalla inay tahay in shabaab laga adkaado shabaab been loogama adkaan karo dhaar been lagama adkaan karo marka ciidankii oo tayadiisu hayna uu aad u weyneen ciidankii oo mushaahar wanaagsan aan qaadanayn ciidankii oo tababar wanaagsan helayn ciidankii oo dhiirinaan wanaagsan helayn inta meel laga qaado la yiraahdo meel Soomaali joogto oo nabada oo shabaab joogin meeshaasi ka Ras Kamboni in la geeyo dabadeedna laba wiil oo dhalinyaro ah oo qowmiyadda Soomaalida aaminsan inay isku dilaan meesha waxa weeyaan diilada ugu weyn ee ka iman doonto weeyaan waxaana marka dambe ku biishwan doontaa in reer loo kala baxo ciidankiina halka ku cirtirmo maxkamadda gobolka Banaadir sidaan ognahay waaran xarig ayay waxay u jirtay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ma kula tahay in maxkamadda Soomaaliya ay awood u leeyihiin in la soo qabto Axmed Madoobe isla markaana maxkamadda hadda horta soo qaban maaya awood ay ku soo qabtaan hadday cid soo qabanayaan kuwa tuugta Muqdisho meeraysanayay soo qaban lahaay Soomaad garan marka waxa weeyaan tiiqsiga qofka kalidii tashigu wuxuu sameeyaa waxa weeyaan waxaan doonayo sidan doonayo waa in la igu sameeyaa in waxaan la leeyahay uma haysto marka in maxkamadda isagu amar siiyo isagoo Xasan iyo madaxtooyada villa Soomaaliya dunuubtay galayaan hay la mid yihiin hayna ka weyn yihiin kuwa Madoobe galayo inay dhahaan waan u jaranaa maxkamaduhu hore maxay ugu shaqayn waayeen ee siyaasiyiinta hay uga shaqaysan waayeen marka awoodna uma laha waana tiiqsi aan meel gaarsin wala markii ay dhacdo isqa qabsi noocan oo kala ah baarlamaanka doorkiisa soo ma ahayn in ay kala dhex galaan oo guddi loo xil saaro isla markaana khilaafkana soo afjaro
waa siday ahaan jirtay loona baahan yahay inay ahaato odayada baarlamaanka iyo haweenka baarlamaanka ku jira inay noqdaan dadka garaad kale ee isku celcelinaya ummadda isku haynaya laakiinse baarlamaanku waa halkii cigaal shiilaade soo ma ahaan cigaal shiilaad markuu yidhi ma waxaan ku mooday kurtiyo ma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin waxa weeyaan baarlamaankii wixii la moodayay noqon waa tilmaam haddaan ku siiyo inuu baaba'san yahay kow waxa weeye sharciba heshiis baa lala soo galay gaashaandhig turkiga heshiiskii waxaa lagu yidhi baarlamaanyo waa inaad ansixisaan inikoon arag dee adduunka laguma arag baarlamaan saa u shaqeeya oo baarlamaan sheegan kara gacantaa loo taagay kulli gacantaa loo taagay intii joogtay in badan in kale way ka aamustay way diidanay laakiinse meesha wuu dhaafaa la yidhi waa la saxeex waxayna arag baa la saxeex haddii bal ay tahay inuu turkigu qaato khayraad wixii xeebta ka soo baxay oo dhan oo gaashaandhigiisa halkaa uu dhigto imanka sawaariikh buu keensanayaa baa la yidhi badda lagu jitaabinayo baddooda ma doonayaan inay ku jitaabiyaan teena lagu jitaabin marka taasi waa kow marka waa la wada saxiixay waa la wada saxeexa sababtu maxay ahayd marka waxa weeyaan madaxweynaha yidhi aniga iyo aamina soomaad garan ta labaadna waxa weeyaan isbeddelkan lagu samaynayo dastuurka waan arkay waan dhex joogay waan dhex fadhiyey ya waxa weeyaan lamagama doodayo waxba lama marinayo waxa weeyaan gacanta loo taago waa la wada taagay ilaa xalay baa batrool lagu soo shubtay dadkana soomaad garan ta saddexaadna waxa weeyaan sharciyan heer hoosaadka u yaala guriga sare for instance mathalan waxa weeyaan gurigu ma kulmi karo hadduu xildhibaanada gobol dhani ka maqan yihiin iminka xildhibaano 2 gobol baa maqan intoodii badnayd puntland iyo intoodii badnayd jubbaland way maqan yihiin sharciyan maaha inaynu markaa haddaanu sanadka nahay inaanu kulanno maba dhacasaba taa marka lasoo dhaafo waxay imanaysaa shaqadu way labada guri way u kala qaybsan tahay waxyaabo marka madaxweyne la dooranayo marka miisaaniyadda dhowr jeer oo caynkaasa ayay isku iman karaan iminka labadiiba waa la isku keenay oo la kala maqan yahay marka labada guddoomiye iyo kuwa ku-xigeenkoogu ma ilaalinayaan shuruucdii u taallay qaranka iska dhaafay tii baarlamaanka u taallay lama ilaalinayo ta ugu dambaysana waxa weeyaan guddoonka sare ee baarlamaanka hoose guriga shacabka waxaan ogahay musuq maasuq aad u fara badan inuu ku dhex jiro oo han soo ogaaday indhahaygaana han ku arkay dhagahaygaana han ku maqlay markii doorashadu dhammaatay tii madaxtooyadu in lacagtii laga ururiyey dadka musharaxiinta oo $1,600,000 oo dollar ku dhoweyd in qayb ka mida guddoonkaasi qaatay oo loogu shubay account shakhsiya loogu shubay waxa ay tustay markaa in lacagta loo shaqaysanayo ummadda een ummadda loo shaqaynayn soomaad garan kaayagana wixii madaxtooyada ka yimaada marka kiin intaad u gelin lacagtan laga arooriyay musharaxiinta maxaa lagu heshiiyey marka in la siinayo marka waxa la yidhi guddoonka gawaari u baahan accountkiisa loogu shubo gaarka ah ma ahayn waxay ahayd inta la keeno gawaaridii la soo gadiyey ilaa dowladdu waxay leedahay cid u soo gada waxay jidkaa la mariyo marka meesha markiiba waxaan arkay in meeshan iimaan darro xoog leh oon ummadda loo shaqaynayna taal kaayaga markan u nimaadno waxa weeyaan aqalka sare markan u yimaado waxa weeyaan aniga iyo oday gaagaablaya iyo dhowr iyo 10 xildhibaan oo senatorsa ayaa motion keenay sidii ummadda loo kala ilaalin lahaa waxay noqotay in wixii distori ah iyo wixii xasaasi ah inuu codayntiisu noqoto sir ay noqoto markii aan geynay waba la nagu soo tuuro waa lanaga aqbali waayey meeshana guddoonka waxaa lagala fadhiyaa qaar iminka wasiirro u noqday xasan sheekh markaa inuu gurigaasina hayaankii iyo xanaankii u lahaa baaba'ay maamul xumo darteed ayaa taasina caddaynaysaa labadaa maamule labada guri markaasi waxaa keenay inay markaa wixii madaxtooyadu wadataba inay dhahaan gacanta loo taago waxa weeyaan dantooda gaarka ah ayaa kala weynaatay dantii waddanka waxaan ognahay inay taagneyd arrintii Itoobiya oo marnaba aan la dhamayn arrintaas arrintan iyo khilaafkan hadda soo kala dhex galaya maamul goboleedyada Soomaaliya hadda Jubbaland ugu dambayso iyo dowladda federaalka Itoobiya maysan ku naaxin oo dan weynaysan ugu jirin haddii arrintii waagii ugu horreysay laga dhawaajiyay ahayd Soomaali
heshiisa oo de markaa waa Soomaali mida waaye horena waxaan kugu sheegay kelidii talisku dad heshiisa ma rabo dad hacooya ayuu rabaa marka waxa weeyaan iyadoo Ethiopia maanta u miliqsanaysa inay dhulkeena qaadato u miliqsanaysa inay nagaba saarto meesha oo geed dheer iyo mid walba u fuushay sidii arrinta loogu xalaaleyn lahaa in maanta halkii heshiiska laga shaqayn lahaa Soomaali heshiiska laga shaqayn lahaa in maanta Soomaali qarka ay u saaran tahay dagaalkii sokeeye qabaa'ilkeenu ka soo wali aynu ka kabanano in dib loogu noqdo waxa weeyaan ama ha fahamsanaado xasan ama yuuna fahamsanaan madaxweynuhu laakiin se arrintan Ethiopia ayay u shaqaynaysaa horena waa tii Puntland tiri annagu shaqada u watay dastuurka kuma jirno maantana waa tan la yiri Axmedow ma samayn kartid waxaan xamar ka samaynano Soomaali waa la kala qaybinayaa guusha Ethiopia si dhab yar ay u iman doontaa haddii arrintan laga waantoobi waayo walaal ugu dambeyntii marka garaadleyda Soomaaliyeed muxuu yahay waajibkooda odagii Allah u naxariistay abwaanka ahaa bishii June 26keegii 1960kii gabaygiisii sii daayay calanka loogu dabaaldegay Cabdilaahi Suldaan Tibac ee magaalada Gabiley ka yimid dabayaal fara badan ayuu sheegay mid waxa ka mid ahaa markuu dadka Soomaalida la hadlayo calanka la hadlayna laakiin dadnimada uu kala hadlayo wuxuu yiri doqoniimo kugu raagtay baan cidi dabiibayne dadkan la hadlayaan lahayn duxiya iibaane bal inay dafoof tahay oo aqliga dooni laga saaray wixii hore u daashaday ayay dhageysanaysaa tiiba maanta joogta marka dadka garaadleyda Soomaalida ama halna ahaadaan culamaha ahaadaan wixii culamada runtii Ilaahay daartiisa ka baqanaya ama baayac mushtar waaweyn ha noqdaan ama wax garad ha ahaadaan ama dhalinyarta wax fahamsan ha noqdaan waxa weeyaan inayna maanta tani isku rogin dagaal sokeeye iyo dawlad lagu kala cararo iyo gobollo islaaya waajibkoodu waxa weeyaan inay iyagu gacanta qabtaan hadday qaban waayaan de waxay heli doonaan dheefteedo dhulkiyo lagu kala tagay oo lagu kala yaacay oo lagu baaba'ay bay arki doonaan iyaguna kuwaas ka mid noqon doonaan marka waajibkoodu waxa weeyaan inay ka digtoonaadaan waxa timcada uu sheegay doqoniimo kugu raagtay baan cidi dabiibayna dadkan la hadlayaan lahayn duxiya iibaane wariyaan imika reer dib leynoogu celin yaan siyaasad ama kalidii talisa ama musuqmaasuqa qoorta laynoo sirin wadanku waa wadankeeni waaye iyo kuma laha Axmedna ma laha Xasanna ma laha innaka wada leh dadka ku baabi'i doonana waa innaka haddii dawladnimadu inoo hagaagtana dadka ku dheefiya waa innaka marka garaadleydu waxa weeyaan arrintan inayna ogolaan inay dagaal sukaya noqoto walaal